Hello, cashirkan waa cashirkeeni inoo socdo ahaa learn how to use window PowerShell ICU command. Maanta waxaan ka hadlaynaa cashirkeena wuxuu ku saabsan yahay coding kale ama commandlet kale oo la yiraahdo the alias provider. Alias provider waa commandlet oo la mid ah kumaanankii aan ka soo hadalnay. Haddaba the alias provider horta muxuu ka saabsan yahay? alias provider alias waa koodad badan weeyaan. Marka ugu horeyso halka ayaan tegayaa, waxaan la soo baxayaa notepad-kan la soo baxayaa soo aragtaan. Markaan la soo baxo cashirkeena maanta waxaa weeye the alias provider weeyaan. alias provider alias provider waa koodad badan weeyaan. Waxaan ka soo qaadanayaa laba kood ayaan ka soo qaadanayaa tusaale ahaan. Marka ugu horeyso PowerShell alias is another name assigned to a commandlet weeyaan. Usually is a shortest name oo loo soo gaabiyey ama often abbreviation waxay dhahaan often abbreviation. Laba exam ayaan rabaa inaan ku tuso. Examka ugu horeeya waxaa weeye cd haddaan qoro ama aan ku taabgareeyo commandletka ama window PowerShellka wuxuu la mid yahay anoo qoro set location. Tan labaad haddii aan ku taabgareeyo window PowerShellka commandka haddaan ku taabgareeyo dir waa is the alias for oo loo soo gaabiyey get child item. Marka ugu horeyso halkaas ayaan la soo baxayaa window PowerShellka soo arkaysaan ayaan rabaa inaan kugu tuso. window PowerShellka markaan ku qoro halkaas ayaan taabgareynayaa. Haddii aan qoro set location ayaan ka bilaabayaa. Haddaan qoro ama aan ku bilaabo set location aan enter dhaho, waa aragtaa waxaa ii soo baxayo PS driverka iyo userka isticmaalayo window PowerShellka. Haddii aan halkaa aan ku qoro sidoo kale cd haddaan ku taabgareeyo enter dhaho, sidoo kale PS driverka ii soo baxayo iyo usernameka oo right u leh. Halkaa ayaan kalin gareynayaa. Halkaa waxaan ku qoranayaa set location ayaan leeyahay. Marka aan laho space ayaan siinayaa, alias ayaan leeyahay, colonka ayaan dhahayaa, enter ayaan taabanayaa. Haddaba halkaa haddaan ku qoro dir haddaan ku qoro waa arkaysaa waxaa ii soo baxayo dri haddaan ku qoro halkaa waxaa soo baxayso drr aliaska. haddaan dir ku qoro waxay la mid tahay anoo oo raadinayo get child item. ku dheeraa maayo haddaan hoos u socdo waxaan ku tusinayaa mid kale. haddaan qoro gci waxay la mid tahay ayadana get child item. halkaa aa arkaysaan kor ayaan soconayaa. aliaskana arkaysaan gci waa anoo taabgareeyey ama raadinayo koodka get child item. haddaba saan hore u sheegay cashirkan waa cashir aan soo gaabinayno oo aan uga hadlayno the alias provider coding waxa la yidhaahdo ama subscriptka markaa qoraysid koodadka ka mid ah aliaska adoo soo gaabinaysid xarfaha isticmaalaysid ama codingka. ku dheeraa maayo cashirkeena maanta intaasuu ka saabsan yahay. ma soo qeexi karno, koodadka waa badan yihiin. haddii aa cashirkan la socotid ama galaaskan aa ku cusub tahay subscribe-ka saar, like-ta taabo, comment ka bixi. commentkaada waa noo muhiim. waa noo cashirkeena dambe.